بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لما وراله ميل كستو joogtaan ba رمضان مبارك إن شاء الله تعالى الله inoo barakeeyo waxaan halkan ka soo gudbinayaa xalaqad saddexaad oo la xiriirta tii labaad aan kaga hadlaynay masaladii Rajacd ibn Dirham iyo Cabdulqaadir Kishki waxay soo gaaray video uu duubay oo ugu muhiimsanaayeen laba codsi oo igu codsaday oo kala ah mid koobaadii in aanu ku tilmaamay mulxid iyo wixii la xiriira inaan wax ka dhaho mid labaadna inaan muuqaalka sawirka iyo tashayuca lagu dhajinin oo interface ku jiro waxaan rabaa walaalaha dhammaan intaanan hoos u gudagelin arrimahaas inaan iraahdo waxaan ku jirnaa bil Ramadaan waxaan ka hadlaynana waa kitaabkii quraanka ee hal akhrista aynu nidhi Ilaahay subxaanahu wa ta'aala difaaciisa iyo inaan difaacno inuu kalaamka Ilaahay yahay waxaan ka hadlayno waa sifaadka Ilaahay subxaanahu wa ta'aala in la ogolaado oo quraanka la aqriyo aayaadkiisa iyo asmaada Ilaahay ilxaad lagu sameyn waxaan ka hadlaynay waa xaq iyo diinta in la xoojiyo waxa ugu weyn ee dadka loogu yeelay waa Ilaahay tawxiidkiisa iyo diinta in lagu sugnaado laga bixin nabiga sallallahu alayhi wa sallam dagaaladii ugu waaweynaa ee Badr iyo Fatxu Makka waxay dhaceen bisha Ramadaan dhexdeeda saas darteed dadku inay diinta iyo quraanka ku sugnaadaan ay aqristaan in diintaasi loo akhrisan lahaa quraanka looguna sugnaan lahaa la difaacay u baahanta waxaa ka mid tahay baan isleeyahay cid Ilaahay waafajiyo Ramadaanka acmaasha la qabta kuwa ugu fadliga badan bay ka mid tahay kelmadaydu afar qodob bay ka koobnaan doontaa labada hore waxay la xiriiraan arrintii hore iyo Jacd ibn Dirham iyo hadalkii uu yiri waxaan ka hadli doonaa laba qowl inaan soo guuriyo oo imaam Abu al-Hasan al-Ash'ari iyo Sheikh Imam Abdulqaadir al-Jaylaani ay kala leeyihiin oo xaqiiqiyad keenaya macnaheedu aynu hore uga hadalnay qodobka labaadna waxaan ku sii dhamaystiri doonaa intaas oo culimo ah quraanku waa makhluuq waa gaalnimo maxay isugu raaceen muxuu yahay macnaha meesha yaalla ee gaalnimada intaas oo dhan ku xukumeen oo xilligii Umayyiinta iyo xilligii Cabbaasiyiinta oo dawladdu ka soo horjeeday dadkuna inay aqbalaan ay ku qasbaysay laakiin culimadu diideen mas'alada siyaasi inay ahayn cadaynaysa qodob saddexaadna waxaan ka hadli doonaa su'aashii dalabkiisii ahaa mulxid baa la igu yiri qodobka afraadna waxaan ka hadli doonaa shiicanima la igu tuhmay afartaasan ku soo koobi doonaa waxaan rajeynayaa hadalkaygu sanaad u badan inkastoo hadalku uu taraaro ducalaan tarmo qodobka koobaad masalada alqawlu bikhalqi alqur'aani ilaahay geed buu ku abuuray hadalkii Muuse la hadlo oo kallama Allahu Muuse takliiman inay dembiyada waaweyn ee kufriga iyo gaalnimada tahay Sheikh Cabdulqaadir al-Jaylaani rahimahullahu ta'ala kitaabkiisa al-Ghunya li talib al-haq طبعا نسخدان هي صفحة بقولي كوه كليه قفكي الشاكتين وقرانكم مخلوق يهي أما وحن لا أقرنا أيوه أخرس كان مخلوق كان لا أقرنا يا ما وحليه هي فهو كافر بالله العظيم وكو كفري وكو قالوا بأله وينا محادثك كقاعد المركب قفكاس وحليه هي ولا يخالط qofka lama dhaxgalo lama kulmo waxba lama wadaago walaa yuakal waxba lama cuno walaa yunakax waxba lagama guursado loomana guuriyo walaa yujaawar lamana darso daris xataa lama noqdo qofkaasi bal yuhjar wa yuhan waa la gooynayaa oo waliba sharafta laga xayuubinaya walaa yusalla khalfa kadaashiisa lagu tukan maayo walaa tuqbalu shahaadatu markhaatigiisana la aqbali maayo ولا تصح ولايته في النكاح وليه dadkii uu weliga u ahaa ee dumarka ahaana walaayadooda la weydiisan maayo
walaa yusallaa calayhi idaa maat hadduu dhintana lagu tukan maayo fa in dufira bihi haddii gacanta lagu dhigana ustutiiba towbaa loogu yeerayaa 3 kal murtadi qofkii diinta ka baxay sidiisi fa intaaba hadduu towbad keena la garay wa ilaa qutil haddii kale ununka la jaraya wash cabdilqaadir aljaylaani raximah allahu tacaala waan filaya qeyb ka mida shacabkeennu oo dariiqooyinka weliba qeybta ugu badani inay sheegtaan inay dariiqiisi raacsan yihiin marka waxaan rabaa dadka dhammaan dariiqa alqaadiriya sheegta ama sheekh cabdilqaadir aljaylaani baan raacsanna ha yidhaahda inay ogaadaan sidaa inuu sheekh cabdilqaadir aljaylaani yihi raximah allahu tacaala naqliga iyo qowlka labaad waa alimaam abulxasan alashcari caliy bni ismaaciil fi libaana safxada 25 iyo safxada 7 buu labadaba kaga hadlay arrintan safxada 25 wuxuu ku leeyahay wanaquulu ina kalaama allahi gayru makhluuq wa ana man qaala bikhalqi اlqur'aani fahuwa kaafir waxaanu leenahay buu yihi qur-aanku makhluuq maaha waa kalaamka ilaahay kalaamka ilaahayna makhluuq maaha qofkii yidhaahda qur-aanka makhluuqan qur-aanku waa makhluuq yidhaahdana gaal weeye diinta ka baxay isla beejka 7aad wuxuu leeyahy faman zacama ana alqur'aana makhluuqun faqad jacalahu qowla lilbashar wa hada ma ankarahu allahu cala almushrikiin qofkii yidhahda qur-aanku waa makhluuq hadal makhluuq oo bashar iyo bini aadan buu ka dhigay waana tii ilaahay gaalada ku diidayo wuxuu tilmaamayaa culummadu ay halkaa sheegaan ninkii reer qureysheeda inahu fakara waqadar faqutila kayfa qadar huma qutila kayfa qadar huma nadar huma cabasa wabasar huma adbara wastakbar faqaala in hada ila qowlu lbashar jaziizu wuxuu noqday sauslihi saqar baan gelinayaa qof kastoo yidhaahdana waa mudanaya waxaan filayaa marka abulxasan alashcari raximah allahu tacaala intii imaamka ka dhiganaysay isagana hadalkiisa fi libaana uu ku yidhi inuu ku filan yahay qodobka labaad aan u gudbo maxaa sababto ay tahay waa qur-aanku waa makhluuq iyo geed baa muuse lagala hadlayo hadal lagu abuuray gaalnimada intaa la eg loo gaarsiiye arrintaas rag badanoo aimaha caddaynaya oo sharxaya sababta loo yidhi alimaamu axmed ibni xambal raximah allahu tacala fi raddi cala aljahmiya safxada 136 wuxuu ku leeyahay miyay bannaan tahay mid isaguba la abuuray amaan alla ahayn inay yidhaahdaan yaa muusa inii ana rabbuka muusow anaa rabbigaa cidaan alla ahayn baa ku tiri isna uu ka aqbalay weeye hadalkani ma dhihi karaan inanii ana allahu laa ilaaha ilaa ana facbudnii wa aqimi asalaata lidikri cidaan alla ahayn baa muuse ku tiri anigaa allahaagii ah ilaah kaloo la caabudan anigaa ahaynna ma jirto ee aniga iyo caabud salaadan aniga xasuustayda u tuko cidaan allah ahayn oo makhluuqa muuse ku tiri oo muusena ka aqbalay ka waran hadalkaa foolxumadiisa wuxuu leeyahy imaamu axmed ninkii sidaa sheegtaay hadalkiisu waxaa weeye cidaan alla ahayn baa rabbinimo sheegatay oo geedii ah hadday noqon lahay sida uu jahmi yidhi ilaahay inuu wax abuuray wixii uu abuurayna uu sidaa yidhi muuse ku yidhi yaa muusa inii ana allahu rabu alcaalamiin uu ku yidhi ilaahayna yidhi wakallama allaahu muusa takliimanna ilaahay yidhi oo mid kale uu ahaa oo weliba yidhi walamaa jaaa muusa limiiqaatina wa kallamahu rabbuhu rabbiga la hadlayna geeddii lagu abuuray khalqigii la abuuray laga dhigo ciddii tiri ini istafaytuka cala annaasi birisaalaatii wa bikalaami risaaladii iyo kalaamkayga cidda tirina makhluuq weeye la yidhaahdo arrintaas ma bannaantu ma dhici kartaa bimacnaa waxaa lagu yidhi muuse makhluuq baa la hadlay geed lagu abuuray ama geed keligii la abuuray makhluuq baa sheeganaya allaha keliya jira inuu yaho muuse la icaabud muusena waa aqbalaya khalqi haddii ay sheegtaan rabbinimo soo tii fircawn maaha haddiiba aad tiraahdo muusena wuu aqbalay makhluuq yidhi ani icaabud anaa alla keliya oo ku doortoo ku diray nabi muuse aqbalay soo intii fircawn rumaysoo kale noqon mayso waa arki doonaa hadalkaas alimaam alxasan alashcari fi libaana safxada 68 isaga wuxuu ku leeyahay uu la doodaya dood dheer buu qolan kalaamka waa makhluuq la yihahdo la galay wujuuh badan leh wuxuu yidhi waxaad sheegatay kalaamka ilaahay makhluuq inuu yahay oo xalla fii shajaratin geed lagu abuuray waa sidii kashki uu lahaa ay daawanayseen
wa kaanat ashajaratu xaawiyatan lah hadalkaana geeddaa gudaheedu ku jiray waxaa ku qasaba buuhi inay geeddaasi tahay midii la hadashay muuse yaa muusaa tiri waxaa kaloo waajibaya makhluuqaadka ilaahay ka mida inuu muuse la hadlay oo geeddii ku tiri yaa muusaa inanii ana allaahu laa ilaaha ilaa ana facbudnii buu qofkaa meesha qiraya waxaad qirteen ood sheegateen geed baa muuse la hadashay oo tiri anigaa allahaagiihay caabud haddii kalaamka ilaahay makhluuq yahay buuhi geed lagu abuuray makhluuqa inuu ku yiri bay noqon lahayd muuse yaa muusaa inanii ana allaahu laa ilaaha ilaa ana facbudnii hadalkaana gaalnimada intuu leegyahay waa garan kartaan muusena waa aqbalay hadalka imaamu albayhaqi raximah allahu tacala fii kitaabihi alictiqaad safxada 96 buu soo guuriyey in abulxasan alashcari caliy bni ismaaciil yirina uu ku sheegay haddaad ibaanada waxbaan ka sheekay tiraahdo iyadoo sideeda oo abulxasan alashcari loo tiiriya bayhaqi ictiqaadkiisa ka fiiri sidoo kale waxaa sii faahfaahinaya alimaam cuثmaan ibni saciid addaarimi fi raddi cala aljahmiyati 164 isna wuxuu leeyahay makhluuq uma banaana ilaahay rumaysanaya maalin aakhiro inuu rabbinimo sheegto khalqigana uu ugu yeero isaga inay caabudaan oo uu ku yidhaahdo inanii ana allaahu aniga allah laa ilaaha ilaa ana midaan aan ahayno xaq lagu caabudana ma jire facbudnii icaabud did makhluuqihi sidaa inay khalqiga ugu yeedho sheegatahay ma banaana waxaad nala tiraahda inii ana rabbuka oo ay tiraahda wa ana اkhtartuka oo ay tiraahda waاstanactuka linafsi idhab anta waakhuuka biaayaatii walaa taniyaa fii dikri oo ay tiraahda inanii macakumaa asmacu wa ara oo ay tiraahdo wamaa khalaqtu اljina waalinsa ilaa liyacbudun inay caabudaan baan u abuuray makhluuq inuu saa yihahda ma banaana inuu yihahdo alam achad ilaykum ya banii aadama anlaa tacbudu الshayطaana inahu lakum caduwu mubiin wa an icbuduunii ani icaabuda makhluuq inuu khalq dadka ku yidhaahdo oo saas ugu yeelaayo ma banaano waxaan la sheegayana waxaas wey wuxuu leey qad calima alkhalqu khalqigu waxay wada ogyihiin ilaa man adalahu allah cid la dhumiyey maahane annahu laa xaqa liaxadin an yaquula hada qof makhluuqa inuu sidaa yidhahdo dadka ugu yeera inayna banaanayn iyo wamaa ashbahu wax lamida hayru lkhaaliqi alla cidaan ahayn bal ilqaa'ilu bihi ciddii makhluuqee sidaa tiraada inanii ana allaahu tiraada say raggaa sheegayaan waddaaci ilaa cibaadatii ciddii in la caabuda ugu yeertoon alla ahayn kaafirun ka fircawna gaal fircawn oo kaleetaa wey fircawnkii yidhi ana rabbukum ulaclaa anaa rabbigiini sare ah yidhi iyo inanii ana allaahu makhluuq yidhi waxuma kala duwana waalmujiibu lahu qofka ka aqbala waalmu'minu bidacwaahu hadalkaa uu sheegtay u rumeeyo adigaasa ah yidhaahdana akfaru wa akdab waa ka gaalsan yahay waana ka been badan yahay saas darteed wixii hadlayana makhluuq bay ka dhigeen nabi muusena kii ajiibey ee rumeeyey bay ka dhigeen miyaynan mudnayn marka in la yidhahdo waxaan waa gaalnimo culummadu isku raacaan ilaa imaam alalakaai shaafici fii sharxi ictiqaadi usuuli ahli sunnati waljamaca uu ka soo guuriyey culummada muslimiinta waan soo gaabin intuu yidhi 500 iyo waxoogay wuxuu yidhi haddaan wada tirin lahana kumayaal baan idiin gaarsiin laha aimadii muslimiinta ka mid a intaas waxaan rabaa inaan ku sharxo maxay culummadu u yidhaahdeen bikhalqi lqur'aan iyo geed baa ilaahay hadalka ku abuuro muuse la hadashay waa gaalnimo weyn idinna markhaatiba ka noqotee maan filayaa oo waad ila aragteen munaasabada intaana qodobka gabagabadiisa waxaan rabaa inaan idhaahdo waa bil ramadaan shahaadiintii waa weyleydna waa xiran yihiin mas'aladuna way caddahay oo meel lagu meeraysta ma laha waxaan rabaa cabdulqaadir kashki inaan halkan ugaga yeero masaladan inuu ka toobad keeno inuu raalligelin ka bixiyo in hadalkii uu yidhi uu ka noqdo qiro inuu khaldanaa keligeedna uusan ka dhigine labadii kelibeen horey ugu diray ee qadarka uu kaga hadlayay caqiide yuhuuda soo dustay uu ku lahaa iyo sunnada nabiga uu ku diray oo 90% dhibka iyo iskhilaafka iyo fitnada muslimiinta iyadaa keenta uu ku lahaana saddexdaaba inuu wakhtiga noo gaabiyo oo cudurdaar ka bixiyo kuna cilaamiyo ku dhawaaqa inuu arrimaha ka laabtay kuna khaldana si aan ugu gudubno masaa'ilkii xuduudda ee uu dalbaday shuruudii xadiid casiizan rabaa uu yidhi si aan ugu gudubnoon iyaga laftooda miiska ugu soo saarno wakhti kooban gudihii insha allahu tacaala intaa kadib qodobka saddexaad aan u gudbay waxaa weeye wuxuu iga codsaday maadaama aan mulxid ku iri mulxidna sida isagu u fasiray uu yahay qof aan ilaahay rumaysnayn arrintaa inaan caddeeyo
waxaan rabaa inaan iraahdo culimmadu waxay ku hadlaan luqadda sharciga ereyga macnaha mulxid waxaa fiicnayd inaad dib ugu laabato luqadda carabiga maxaa lagu yidhaahdaa isticmaalka sharciga ee kitaabka iyo sunnada iyo culimmada muslimiintana maxaa mulxid la yidhaahdaa inaad ku laabatay ahayd su-aasha maadan keenteen anigu ma dhihin ilaahay ma rumaysna macnaha mulxidna isticmaalka luqada asalka iyo sharcigu midna macnaha aad u qaadatay maaha sax muddadii dambe 100kii sano iyo ama wax dheeraan kale u dambeysay baa macnaha loo isticmaalay laakiin isticmaalka qur-aanku qofkaan ilaahba rumaysnayn wuxuu isticmaalaa wamaa yuhlikunaa ila dahr dahriyiin bay culammadii hore yidhahdaan waxaa la dhihi karaa abulmalaaxidada macnaha aad ku fasirtay mulxidiinta aabbahooda ilaahay aan rumaysnayna fircawn baa kowka ah waxaan rabaa 2 arrimood inaan u kala saaro anigu ma dhihin hebel ilaahay ma rumaysno oo gaaladaba qaar baa ilaahay rumaysan oo yuhuudiya kiristana ومع ذلك ملحدين واي صفات القرآن كي السنة هي اللقد وحينا بارين ملحد وحال إلى في لغة العرب من الإلحاد واي الحاد نسيد ابن منظور في لسان العربي كل شيء غيان شاشدنا كارك دوتان إن شاء الله تعالى وحولي أصل كإلحادكو الميل إن لقال لحدا ويجدك اللو السعودي وحنا كسو قرنا يا ابن السكيت نجري الملحد العادل عن الحق المدخل فيه ما ليس من فيه ويقال قد ألحد في الدين ولحد أي حاد عنه دينتي الحاد كلا حشو سيد الله قال لحد صدرت هلك واحدة قرنا يساد دين كلا حشدو هيرر بدن بيجري كرتامين إن ير لحدي يبدن بدن لحدي ويسوق ريان ولذلك استعمال كقرآن كي سنة من ضمها إلهي بالله ينكره مرك إلهي سبحانه وتعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه أسماء إلهي سخل دنو اللحن واستعماله آلهذو ذي بي عزة بحيان من العزيز اللاطي من الله بحيان المناطي من المنار بحيان سيعلم ذي هذين قال أسماء إلهي بإنكران قالوا وما الرحمن أنا اسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا بيلادين كواسا كمذا كوال إليها يلحدون في أسمائه شريتان كسي إنكر الله مدهن ولذلك القرآن كوين بدن قريشتي قالدي عربادي آيات كهد ليين ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله إلهي واقل سنايين الحاد بنا لغوت المامي أسماء إلهي سخلت الله فسر وحال مذا إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا كوا آيات كيغا الحاد كو سمينا ينقى ما قرصونا ilxaadka aayaadka lagu sameeyana macnaheedu ma wada aha dadku inay inkirsan yihiin ilaahay jiritaankiisa ma aha macnaheedu marka ilaahay wuxuu leeyahay xaramka markuu ka hadlayo waman yurid fiihi biilxaadin bidulmin nudiqhu min cadaabin aliim xaramka qofkii ilxaad ku sameeya dulmi ah xaqa kaga leexda khalqina kullu ku dulmiya walidaalika taas aayadda waxaa ku macno dhow qowligu calayhi salaatu wasalaam fi saxiixi albukhaari xadiidka ibni cabbaas أبغض الناس إلى الله 3 سدح وإلهي وعرى بدنيه ملحد في الحرم صدرت ملحد نبالغو مقعابي وحو السمبيين وخلط وحرمك بيت إلهي كقري وحاكم إذا لمنك عربتها مركا النبي قال لها عد كستا كلا وحيوتي قرآن كان يكهل لين الله ما نيدي دنين شريتان كيسا كوا كلا وكل ما نيانه لسان الذي يلحدون إليه أعجمي صدرت استعمالك الشرعي هنا وحقي أو لقال لحظه ملحد بالا دهي كرا ولو جزء بهان نقضي قيب كمي هكا لح صدرت انتو سن أنيقا هذا الكيغا اصطلاح حادث وعصب كفاسرين وحي هيد إنو ديبقون نقضي استعمال كاللغة هي الشرعية علماء وحيكوها اللغة شرعي واستعماله استعمال كملحد قفا إله جريتان كي سبر رميسنين استعمال حادث وعصب ودنبوية معناها قوذي الحاد كي كل غانا واسوق ريان waxaan rabaa tabataas inaan ka saxo halkaana qodobka kaga gudbo marka halkaana ay ku dhamaato oo aanan yeelanin masaladii asalka ahayd meel looga leexdo qodobka haddaan dhammaystiro aan dib ugu noqdo mar kale dadkan sifaadka ilaahay saa wax ka yiri mulxidiin ma la dhihi karaa nacam haa الإمام الدارمي كتاب كيس الرد على الجهمية صفحة 164 هذا كان هداي سوق نوحر كهر صدر كهر وحوليه
qolyahan jahmiyada markuu la hadlayo antum almufaariquuna lijamaacati almuslimiina qadiima waxadiida almulxiduuna fi aayaati illah almuftaruuna cala allahi wa cala kitaabih idinka ah jamaacadii muslimiintii waa horiye waa dambaba dadka khilaafay idinka ah kuwa mulxidiin fii aayaati illaahi ah idinka ah kuwa ilaahay ku been abuurtay iyo kitaabkiisaba jahmiyadu la hadlahayay khalqu lqur'aan tiraado bisha almiriisi iyo raggiisa mar labaad fi naqdi cala almiriisi juska koowaad 507 dabcada xasan alalmaci wuxuu leeyahay walow anaka bada'tanaa bilkhawdi fiih وفي إذاعة كلام بشر المريسي الملحد في توحيد الله ذو هذا نغب اللعبين هذا إيا فذنت يا باهنت هذا بشر المريسي يريد ملحد في توحيد الله المعطل صفات كإلهي يقولنا ماشا كساري كاسو ينوبنا نقف مسلمة أو عدينتي إنو عدايو إنو كقابيو قف كاسو تشوغ ميل يا بلد وحاس له فافي الإمام محمد بن حزم في الفصل في الملل والأهواء والنحل جزء سدحا صفحة اللواتنات وحكاها الله عبد الله بن أحمد الكعبي البلخي والرؤوس المعتزلة كملوا كهله قال أبو محمد وليس كما قال الجاهل الملحد فيما وصف الله تعالى به ما هبوا لأرنت السيدو جاهل كملحد كإله كتل مامي كشاغي تلماميسا كشاغي صفات بالغار ليا وانا معتزله الهي جريتان كيسا ما ينكرسانا هذانا ملحد بمعنى استعمال اللغه دي الشرعيه هابay culimadu ugu tilmaamayaan marka saad darteed waxaan rabaa inaad ogaato culimaduna isticmaalkaas ay isticmaalaan kitaabka iyo sunnada iyo luqaduna saas ay yiraahdeen marka anigu ma dhihin ilaah ma rumaysnid adiga u fasirtay tafsiir xaadithana ku fasiray kii luqada iyo sharciga la yaqiinayna aan dib ugu noqonin ama dib u fiirin qofka ugu dambeeya masalada tashayuca uu yiri waxa la igu tuhmay sawirkii halka horta laba waan ka faa'iidnay oo sawirka uu qiray kishki inuu jiro ma dhihin waa been iyo photoshop ma dhihin laba wuxuu qiray wax ka sii badanoo siiqiyo yuhuud ba xataa inuu la galo meelahooda oo interface ku jiro anoo hadda interface geli maayo rag badan baa kula jira oo ama North America jooga ama Arab jooga ama meelo kale jooga baa kula jira masala interface ka hadda geli maayo munaasabadeeda ma laakiin waxaan rabaa inaan iraahdo mas'aladu waxa shakiga nagu beeray inta kaliya ma aha in ka badan baa jirta oo qaarna sheegay laakiin aan ku celiyo marka koobaad waxa sheekh kuwa Adnaan Ibraahimna sidaadoo kale Shaafici Ash'ari sheegtaa aduguna Adnaan Ibraahim baad ku faantaa ka soo koobiyeysaa iyo koobi aan besti samaysaa waxaan soo sheegnay Adnaan Ibraahim inuu shiica u khidmeeyaan soo sheegnay oo shiicadii qirayaan linkiga iyo kalibyadiina aan soo gelinay adiguna isagaad ku faantaa sheekhaagi inuu yahay isagaadna ka soo qaadaa isaguna rag badan baa waxay qabaan inuu yahay shiici raafidi isqarinaya madaxa laga bilaabo ilaa minjihiisa laakiin uu isqarinayo taqiyadii shiicada uu isticmaalayo laba adiga isaguba saxaabada durtaan waxaadna adigu qortay Cabdulqaadir Kishki adigoo nin la doodaya Usaama la yiraahdo in Kishki saxaabada uu duray ee wax ka sheegay see wax ka yahay marka lagu yiri aatirinin ijtihaaday weeye wuxuuna ka shaqeynaya shiicada iyo sunnada in la isu soo dhaweeyo buu ka shaqeynay aad cudurdaar uga dhigtood ku sababaysay taasi macnaheedu uu yahay Adnaan markuu saxaabada duraya طبعا saxaabo wax laga sheegay sunna lagu ma soo dhaweynayo way ka fogaadaan shiicada lagu sasabaya shiicad darteed ba saxaabo loo duray baad ku difaacday waana sheekhaagi aad ka soo qaadatay hadiiba saxaabadii loo duraya shiicad darteed dee bahashi inaad u khidmaynaysaan iyagoo isqarinaya tihiin inaan tuhun iyo shaki qaadna xaq baan u leenahay waxaa intaa kuu dheer adiga طبعا عدنان waa kula wadaagaad ka soo qaadataay kutubtii sixaax ee sunnada ahayd waa durtaa Bukhari iyo Muslim iyo sixaax shiicadana waad ka soo qaadataa sida kitaabka Kulayni muhaadaraadka gadada xasuusnayn dib ugu noqo Maxamed ibn Yacquub al-Kulayni kitaabkiisa al-Kaafi iyo usul al-Kaafi baad wax ka soo qaadataa
adduunka gaalnimo hadday jirtana kaafi usuul kaafi kuleyni bay ku qoranta inaad sixaaxii sunnadana durto sixaaxii shiicadana ay gaalnimadu ka buuxdeena daliishataay dee wax walba bilaash way iska dhaceen ma noqoto intaayna israacraacda iskana dhacdo weli boqol maanaan dhihin waxaa intaa kuu dheer xiwaarkan markuu bilowday waxaa gabayo kugu soo difaacay shiicadii soomaalida kuu soo gurmaday markii wax kale la waayey dadkii sunna iyo ahlu sunnuhuna ay shakiyeen ay dhaheen war ninkan wuxuu wada muxuu yahay shiicadii baa gabay kugu soo gurmatay oo deegaanada soomaalida qaarkood ninka raafidlada ashcariya shaaficiya ku gabatay ugu weyn waad ogtahay gabayga baraha bulshada uu soo dhigay ee adiga kugu difaacaya ee kuugu hiilinaya kugu garab istaagaya waa isweydiine maxay shiica kugu soo gurmanaysaa haddaan wax gaar idinka dhexayn inahaasi weli waxaan taagannahay shaki baan qabnaa in oohinta orgiga ka weynay tahay shakiga sababahaasaa nagu kalif waxaan rumaysnahay intaasoo dhan markay israacaan sawirkiina lagu daro inaan xaq u leenahay inaan isweydiino mujtamaca muslimka ee ahlu sunnada ah ee soomaaliyeed ee meel walba jooga muxuu yahay ninkani waad ogtahay kuwa saaxiibada inta faydka kugula jira inay saxaabada qaarkood mucaawiya xaatacaayeen ooy dhaheen xilligiisii ilaa maanta xaakim kastoo jaa'ira dembigu galay qayb ku leeyihiin inta fayd bay kugula jiraan sawiradaasoo kale ay kula galaan intaas baan ku soo gabagabayn waxaan cusboonaysiinayaa mar labaad inaan idhahdo cabdulqaadir kishki mas'alada khalqul qur'aan iyo jacd ibn dirham ma qarsoona waxbaha ka leexleexanin xaqana qofku hadduu wuxuu sheeganaya ka run tahay inuu u hoggaansamay ku fiicanta xaqa u hoggaansan rabbi u towbadkeen ka laabo iclaani inaad ku khaldanayd dadkana ka raali gelisay rabbina uga laabatay hana ka reebin masalada khayraani alqadari iyo sunnada fidnada iyo dhibka muslimiinta axaadiidka nabiga sunna nabawiya keentay 90% labadaa dambe kelibyadoodii waan kuu soo diro inaad tiri waad ogtahay waad haysaa waqtiga inoo gaabiyo aan masaa'ilkii xuduudda rajmiga iyo riddada iyo shuruudaas sheegatay inuu gudubno ilahi subxana wa taala xaq allah ina waafajiyo xaqana allah inagu suga maasantihiin wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu